islaamku ku abubakar 80 wiqiyadood oo dahaba bilaal ku iibsaday wey maxay soo ahaayeen abubakar iyo bilaal xagee iskaga soo dhacayeen 4.5 ka way isaga dhawaayeen soo maaha laa ilaaha ila allah marka nasabka la fiiriyaan inagu wax ku qiimayno ila inagu diin wax kuma qiimayne marka nasabyadan wax ku qiimayna la eego meel lamayna iskaga soo dhacayn aabihi on markaa wali islaamin baa ku yidhi abubakarow xoolahaaga haddaad nin berri wax ku taragashan lahayd danbayay ahaan lahayd buuri nin miskiin oo la addoonsada xoolaha intaa leeg maxaad ugu bixisay abubakar markuu ka gadayey ubay ibnu khalaf bilaal ka gadaayey 80 wiqiyadood oo dahab uu bixiyey baa la yidhaahdaa 80 wiqiyadood oo dahaba adugu qiyaasoo lacagtii berigaa jirtay 80 wiqiyadood waa 80 meeloodoo min 40 weeye 80 min 40 garaamihi waa imis 80 markuu siistay oo aan ku dhufannay 40 oo midiiba ay 40 garaam tahay yacni wiqiyadiiba waa 40 garaam waa 3,000 iyo imsaad tidhaahdeen 3,200 soo maaha 3,200 waa imisa dollar hadda halka garaam 3,200 konton dollar ku dhufo ama 40 dollar ku dhufo lacagtuu bilaal ku gatay abubakar baa kuu soo baxays 1,400 oo sano ka hor bay joogtay ma aha intaan sicir bararku dhicin 90kii Soomaaliya intaan la kala cararin ma ahayn 1,400 oo sannadood ka hor buu lacagta abubakar ka bixiyey walaalkiis bilaal waxa lacagta u gooyay waa walaalnimo nasab ma aha soo garan mays abubakar wuxuu ku yidhi ubay ibnu khalaf markuu gadanayey hadal buu ku yidhi bilaal wuxuu ku yidhi wallaahi abubakarow hal wiqiyada mooye haddaad xitaa wax kale ma haya idhihi lahayd bilaal waan kaa iibin lahaa lianna laa khayra fiihi bilaal khayr kuma jira buu yidhi maxamed iyo balaayu raacay muxuu ku yidhi isaguna wallaahi haddii awlaaddayda wax ka soo hadhay oo adduunya aad bilaal diidi lahayd lacagtayda oo dhan maahay wax kale inaad bilaal igaga iibiso wallaahi la abicannaka bihaa buu yidhi intaan mulkiya waan siisan lahaa saaka bilaal walaa aclamu anna fiihi khayra alkaiir walaalnimada naga dhaxaysiya khayrka ku jiraan ogahay buuri adigu bal iska badaa ruux islaam aad isugu timideene ka aabbaha iyo hooyadaa dhalayna masaajidka kugula tukanaya maxaad u ogoshahay